bannaanoo daawan doona way arki doonaan xilligii dawladii maxamed siyaad barre ee militariga ah ay dalka ka talinaysay raggii joogay ee shaqaynayay waa og yihiin nin caan ahaa baa jiray ninkaasi golihii shacabka ma dibitaatiyada ee baarlamaanka Soomaaliya la oran jiray ayuu dawladii madaxtooyadu u qaabilsanaa qasriga madaxtooyada ayuu wararka u keeni jiray inuu firfircoon buu ahaa wuxuu aad ugu xirmay marwadii waqtigaasi maxamed siyaad barre ee Khadiija Macalin ninkii aad buu dadaalo si runtii laab xaaran ayuu ugu xirmay madaxtooyadaasoo marba siyaasiga kacaandiidka wixii lagu oran jiray lagu eedeyn jiray ayuu isagu sawiri jiro musawir ka bixin jiro faaleen jiray xilliga tiknoolajiyada casriga ah ma jiro telefoonada wax lagu duubiyo wax ma jireen isagu maskaxdiisu wax ku duubi jiray ninku sidii uu waday golihii wasiirada ayuu ka mid noqday tilmaan caan uu yeeshay oo wali wasiirada dhan u yaqaanaan علي خديجة نكى لوبي وزير علي خديجة لورنجري علي تاريخ اسكوميدا بينك مصورهان ليه سيدو برلمان كوجو قبل سناب مدحتوية السومالان سيدا أو سياسيين تمصور كوجو بحني سبالها ما تلا سعوداني قدام يرهان قرن ما يسيد ولا سعودية وحبوك الريكورد قرين يو عدام به وجه سمالة سيدي بو علي ويصير كل نهضة علي وحرر الله صحافتك عصرية ما عم الريحان قبيل وين عريقه كونفورت الصومالية ودك هاد دقيقة له يسوون كم سوى كذا قبيل كاسي إن علي لقيت دايو علي ما تلقى بالأبوان وحن واقعنا علي خريج صحافتنا واحد عليه روح إن مقعها كلها وقعتنا مريحان كاسي